Rendile people. ismaqal wacan miyaad weligaa maqashay magaca Rendile haddaad maqashayse ma ogtahay qabiilka magacan leh inuu wax badan uga eegyahay bulshada Soomaaliyeed taariikhaha qaarna ay tabiyaan inaan isir wadaagnahay muuqan waxaynu uga hadlaynaa waxa aan Soomaali ahaan la wadaagno Rendilaha soo dhawaada Rendile qabiil dega gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ka oo dhaqan luuqad muuq iyo mansabka xoolaad ay dhaqdaanba ay isaga eegyihiin Soomaalida taariikhaha qaarna ay xusaan in reerkani kolkii qoomiyadaha Afro-Asiatiga ama Kushitigu imanayeen geeska Afrika isagoo ka leexday qoomiyada Soomaalida oo docda Kenya u bayray halka Soomaaliduna ay cirifka bari ee qaaradda isku teedisay waxay Rendiluhu uga eegyihiin muuqa guud Soomaalida sida daraasadaha lagu sameeyay ay muujinayaan waa dad dheer midab ahaan maariin ah waji dhuuban timahoodu ay jileec xigeen yihiin labiska ciyaaro dhaqameedka qayb ahaan iyo xitaa cibaadada abka soo gaarka ahna waxay uga eegyihiin Soomaalidii joogtay islaamka ka hor dhinaca diinta haddaan eegno qabiilkani waxay haystaan diintoodii abka soo gaarka ahayd ee ay ka dhaxleen awoowayaashood waxayna rumaysan yihiin waaqo booska alla weyne u jooga iyaga isu ekaanshaha iyaga iyo Soomaalidu halkaas ayay ka bilaabanaysaa oo waa tanbaarayaasha taariikhda Soomaalidu ay sheegaan in Soomaalidu islaamka hortii u cibaadaysan jireen alle ay ugu yeeri jireen waaq ka oo jooga samada cid kale oo loo shirig yeelana aysan jirin magaca waaqna hadda ayaa weli raadkiisi laga helayaa gudaha Soomaaliya oo waa tan magacaasi ay wataan qaar ka mid ah deegaanada Soomaalidu isu ekaanshaha kale ee Soomaalida iyo qabiilka Rendiluhu ay wadaagaan waa afka oo waxay ku hadlaan luuqad ay ka buuxaan in badan oo ka mid ah erayo Soomaali ah oo wuxuun yar la dhalan rogay balse uu garan karo qof walba oo Soomaali ah ee yaqaan afkiisa hooyo docda kale qoyskan oo tiro ahaan lagu qiyaaso ugu badnaan 200,000 oo qof waxay dhaqdaan 4 meesho xoolaad ee Soomaalida ee kala ah geela riyaha idaha iyo lo'da siyaabaha loo dhaqo xoolaha la fahaantooda waxay ka shaabahaan Soomaalida oo waa dad reer guuraa u badan xoolo jecel si weyn u xanaaneeya xoolahooda dhinaca gaarista go'aanada masiiriga ah ee qabiilka waxa loo daba fariistaa odayaasha dhaqanka waana astaan kale oo bulshadani ay la wadaagto Soomaalida inkastoo qoomiyadaha ku abtirsada Kushitiga ee Soomaalida Eritreanka Oromada Rendilaha iyo kuwa kaleba ay isaga mid yihiin waxyaabo badan oo dhaqanka diinta afka maalka ay dhaqdaan iyo midabkaba ay isaga egyihiin haddana Rendiluhu waa reer baarayaashu ay u arkaan qabiil ka lumay Soomaalida kaasoo aragooda dabadeed aadan su'aal gelin karin in isirkoodu uu Soomaali yahay